يوروب ومال markii hore Soomaalidu ay dhaqaale u dooratay saddex ay weeyday arrin xoogo muhiim noola muuqatay walaalaha nin kamid ayaa soo gudbiyay wuxuu yiri sheekh waxaan rabaa inaan Yurub aado aniga iyo carruurtayda maxaad igu la talin lahayd kula talin maayo warbaase ku siinaya Yurub waa meel markii hore Soomaalidu ay dhaqaale u dooratay saddex ay weeyday dhaqaale wax ka hele laakiin dadkay wateen bay waayeen dad ay adna waad suwaayeen dad muddo sii joogto si kalena aanu tilmaamo waa meel halis ah oo halis ku ah dadnimadaada iyo diintaada maxaanu leeyahay halis ah waxaad u tagi doontaa ummad adigu aatay ninka madooba la cunsureeyo adigu aatay ninka dhaqaalaha ugu yareen la liido waa ummad maada wax lagu qiimeeyo qofkaan shaqeynay yani uu dadka dhintuu ka mid yahay qof walba inta jeefkiisa ku jira dadnimadiisu leefta adna waxaad ka mid tahay dadka ugu hanti yar leh qof la liida baad waa ummad aad ka dhaqan iyo diin gadisantay oo waxaad haysato dhan cagsigeeda haysta uu ka gadisan yahay wax kasta waad ku soo xiiqaysaa misaalo basiitaan ku siinaya مثلا meel fa ku geyn maayaba systemka waxbarashada ee meesha ka jira carruurta wuxuu doona ha ahaado qaab uu salaysan qaabkaasi waxa weeyaan macalinka iyo gurigu inay isku xidhan yihiin ardaygu wuxuu soo meesha lagu soo dhigay in guriga loogu sii hagaajinayo gurigu hadduu hagaajin kari waayo in la qoro inuu غير مسؤول yahay ilmuhu inuu xaq u leeyahay marka cid kale oo toosisay inuu helo ilmaha inta aad meel kale baayeen isku waayin iskuulka caawin kari weydaad ku waayi kartaa waa koow soo dhaafta macallinku iskuulka wuxuu yeedhaa waxa laga yaabaa toddobaadkiiba ama bishiiba in hal shir oo ilmahaga lagu yeedho laakiin noloshu waxay u salaysantay meesha taala qofku ama ilmama dhalin ama hal mid buu dhalay reerka ugu badanina laba dhalay labada qof ee dhalaybana waxba yaqaaneen oo ugu yaraan dugsi dhexe ka baxeen labaduba way caawin karaan labadubana shirka way tagi karaan labadubana afka way fahmi karaan adigu lix baad wadataa bishii marka lagu yiraahdo lix goorna shirka iskuulka kaale lix goorna dhakhtarka gee 12 afar baad shari doontaa iyagu de marna islaanta tagaysa marna odaga tagay waana laba mid wuxuba adiguna lix baad haysataa lix jeerna halka lagaaga yeedhaya de hadaa shaqeynaysi iyo wixii kalena xagga way ka sugayaan ma awoodid waad ku qasbantay inaad qaar jarto ma awoodid barina wax lagu qorayo waa غير مسؤول waayo ilmihiisa waxbarashadiisa loogu yeedhay la leeyahay kaale lagala hadla uu iman waayay يعني wax simbol adiga aan kulaba weynay ayaad ku waayi kartaa ilmahaaga waxaan uga jeedaa marka waa nolol waa Yurub ninka horta tagaya waa nin ku talagalay inuu dagaal galo laakiin dagaal haddana aad hub lahayn ka waran haddaad tiraahdo waan galaya nolol dhan oo dhankay u socoto mooyaan adiguna aad rabtay inaad dhanka kale u socotaaba tagay ilmuhu ma xuma Soomaalidu ilmaha xumaada ilmihii baa lama xumo ilmuhu ma xuma dadka xum waa ilmuhu muxuu xun yahay asliyan ba nabigu muxuu ku tilmaamay tarbiyada iyo xagee ka qalloocata ma ilmaha xun ma mujtamaca xun xadiiska nabigu wuxuu tilmaamay inuu ilmuhu toosay kullu mawludun yuladu maxay ala alfitra xaq xumuhu ka yimaada fa abawaahu yuhawidani aw yumajsani idan mujtamaca iyo environmentka dabada deegaanku wuxuu ilmaha kaga imbows kareynaya ku taaya xuma iyo sabamid uu noqda ilmuhu marka fitradiisa buu iska wataa laakiin heeriye ka weyn baa la saaraya oo waxaanu iska celin kareen baa la saaraya ilmahaagi baad iskuulka u diraysa waxaad leedahay ilmahaygu masar yar buu xidhanaya inantaadi yaray iskuulkii markay tagtay waxa laga yaabaa inay kaligeed madowdo marka horeba waa la xaqiraya tan yar madowga habar qabtadan yar ee carruurta soo dhex gashay dadkoo dhan uu xaqiraya ilmaha carruura xaqiraya cid walba
carruurta yaryar intaan macallimada la gaadhin baa mobbing ku samaynaysaa, carruurta yaryar baa dacayadeynaysaa. heblaayo madaxan yar ay qarsanayso injir bay ku wadataa, uskag bay ku sidataa bay leeyihin. waa midh yaroo dee 6 jiroo kaloo leeg. ilmahaagii yaraabaa isagoo cadho baktiyuu kuu imanayaa, yuu ka cadhaysanya 10 yarraa uu la dhiganayay, iyagaa xamanaya, iyagaa caay, aabba wax naga daa buu ku leeyahay, meeshii baanu joogi kari weynay. ama intuu qaato ayuu markuu meesha galay intuu laalaabtaa hoosta gashanaya, waayo waxa ka horreeyo ogi. adna waxaad leedahay waad xidhnaanaysaa, waana dhex fadhiyaysa, iskamana celin karayo. bale macallimadaa odhanaysa, waa gaalad kaloo doonaysa inay ku istihdaado. macallimadaa odhanaysa heblaayo masarka waxay adiga goor u xidhan tahay, uskag bay ku qarsataa. markaasaa yarar kalena dheh lagu qoslaya. taada yareedoo baktidaa imanaysa waxa ku leedahay anuu ama iskuul dambe tegi maayo ama masarkaad iga dayn. labada mid iskuul hadday tidhaahda tegi maayo dee dawladdaa ku qabsanaysa, waad ku qasbanta. basarkiina hadday qaadato wixii baa ka horreeya. yani waxaan uga jeedaa ilmihii inta la lumiyaabaa laleeyahy war ha lumi, inta la lumiyo ayaa laleeyahay ha lumi. waxaan uga jeedaa war suuraddana haysataan maaha. yani dadku waxay isleeyihin war maanoo caqligaygalaa laygu odhanayaa diinta ka bax, ka bixi maayo carruurteeda inaana u sheegay inay diinta ka baxay. cidina ku odhanay mise ka bax, laakiin waxaad kaga baxdaa baa lagu tusaya. cidina ku odhan mayso ka bax, laakiin duruufta meesha taalla iyo bii'ada tani qaabkay u salaysantahay iyo qaabka loogu talagalay in lagula dagaalamo ayaa ah qaabka bax. ilmuhu iskuulku u imanaya, weligii waxaad haysataa uu xun yahay lagu odhan maayo, laakiin maalin kasta su'aal litashkiika baa lasoo weydiinaya. maxaa gacantiina dabada ugu maydhaanee u istijootaan? bes waa la iskaga tegaya. ilmaha yar su-aashan way ku noqonaysa, qaar buu ka jawaaba. maxaad 5 jeer maalintii fooda u dhigtaan? su-aal baa la weydiinayaa bes, laakiin su-aashu waa su-aal khabiisnimo ay ka dambayso, maaha su-aal cilmi iyo waxaan looga jeedo. waa ilmahan in la tashwiishiyo. ilmihii caalimaha wax walba ka jawaabi karaya, maalin walbana su-aal baa hortaagan, maalin walbana su-aal uun caqiidadiisi iyo wixii uu haystay ku saabsan baa ag taagan. isna difaaci kari maayo, aakhirka inuu isdhiibo bay noqonaysa. mucallinkani tii kale isagaa falsafadaynayo sharxaya dee. waaxid khabiir baa halkan jooga ahlu kufriya oo loo soo tarengareeyey inuu baatilka sharxo, oo dabeetana balballaadhinayo oo adigaaga weyn isku dayaya inuu kuu tusiyo inay tahay xuquuqul bini aadamka iyo wax toosan. ilmahaagina tiisiina ma sharxi karo, aabbaa iyo hooyada wadaana inta badanna ma sharxi karaan. xataa hadday caqiida ahaan u haysteen waxaa laga yaabaa cilmiyan inaanay dhaadhicin karin, walow wadaadna ha ahaadee. waayo wadaad ma jiro wax kasta si fiican u wada garanaya. nin waliba de waxoogaa mid 40ka bowsaday iyo mid bukhaariga inta hore ka dhigtay waxoogaa baynu wada bowsanay, laakiin nin si fiican wax ugu raasakho wax iska celin karaya. الراسخون في العلم هم بدأوا يحكي لي كلام هذه وحويا الراسخنا وكهور تاجني في الكفر وما لك السؤال كوله تاجن أدنى وحاجة في عنو قرين ميس وما لك السؤال للتشكيك با هي هرتاد تاجن والمهاجي اللي ويديني يكل ويديني يا هذه قوصة بحي ساعين كم إحنا وجه ده أنا وقوة الرمي وحقول لي ماشى تاني وأون هدي مركي هراء اللي كابد بادي أنا هراء وتجين أهل النار كلا لما جوري هلا جوري السلام عليكم.